بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى رياضة وناكسن قفك مسلم كأحسد رسولك عليه الصلاة والسلام والشيغي وحو أقدقي يعنيه مد مركز بشارة معناها مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام حوليه الرؤية الصالحة من الله رواية كلمة أهيد الرؤية الحسنة من الله رياضة وناكسن إلهي تبارك وتعالى إن عيسى كأهاتي والحلم من الشيطان midda markaasi qarowga ahee riyada xun ahee markaasi qofka uu arkana shaydaan in ciisay ka ahaatay sidaa darteeda riyada noloshaada macnaha ma ku dhisan tahay ama macnaha wax ma ka beddelaysaa ama xaqiiq markaasi kaa maqneed oo aad heshamo tahay ama wax diintaada ama dhaqankaada ah ay tahay markaasi oo wanaagsan yacni inaad wax ka beddesho riyada markaasi ma ku faraysaa macnaha laa waa maya maalan yacni qofka wuxuu ku leeyahay waxaan arkay يعني أما أنكر رياضي دور مرة أنكر رياضي يعني إن التحيات معناها لا فر إن أنساء التاجو معناها هالفر ميديك هاللغة تلقى إن التاجو سماه مثلا أو مروك ستدأ وحوليه هي وحن أركي يعني لا وضع فر إن أنتاجو قصة وحي كد عدي إن محنكر راي هولن دنهاق إن المساجد كمركز قوبة نين مركز واحد جري رق بدن ومركز هدي يعني أركي دونا فيديو كان نمرخاتي كيهين مثال أنا مر إمام أنك هنجري مسارئة يعني هي مثال كاسي أيا وحكد عي نين مركا تونيزيان أو مركا أهل الجماعة هون لتو كذا ذاتك أهل خير أيا وحوليه هي يعني هي وحا أن أركي هالمر إلى ومر ما أهن لإفري يعني لإيوش شيء إن الله وضع معناها فرق أن سلاله ماشي خفك الله الربيع وحدانية دي الله سبحانه وتوحيد كيسائي قريتانك أسيا وأسميه in badan u diidnaan niri war arinta ma banaano inta axaadiiska ku soo arortay wuxuu leeyahay oo soo istaagay waxba iga ma celinaysaan adinka waxba iga ma celinaysaano arinta waa sidaasi sida aan riyada ku arkawa intaasoo wadaada isugu tagtay intaasoo mala lawaaniyay intaasoo mala isku day in loo aqli celiyo diidiyay oo fiirso wuu diiday markaasi waxaa jiray wadaad culimada waaweyn markaa meesha ka mid ah masaari'a sidoo kale sheekh mamduux la dhaho sheekh mamduuxa marka inta u sheegnay waxaan yiri sheekh mamduux xaaladan ayaa jirtay bal ninkan macnaha la hadal uu diiday sidoo kale ogow marka wax markaasi diin ha ahaato ama dhaqankaada wanaagsan ha ahaado riyo intay ku imaato kuma farayso bedel kuma dhayso waxa samay markay diinta ay tahayna waa arin lama taabtaan oo aan la taaban karin yani macquul ma amana banaana marna kuma banaana ilaahay tabaaraka wa tacaala xukun ama wax uu soo dejiyay in macnaha riyaad riyootay wax ka bedesho مثلا sunno wax kama bedeli karto xukun macnaha marka jiray ama maxaan ku raad dhaqankaadi wanaagsana waxba kama bedeli karayso nacam hadda xumaan aad sameeynayay riyo wanaagsan intay ku imaatay aad aragtay kadibna riyada wanaagsan wixii xumaa adiga naftirkaada xumaanta u arkaysay ku tiri macnaha waxa macnaha yani مثلا وارن la gartay taa iska wax macquul ah laakiin salaad duhur macnaha waa 4 rakacadood waxaad ku riyootay haddaad 5 rakac ay noqoto duurka aad ka dhigto intaasoo fadli intaasoo ajr aad helaysaa ma samaynaysid waxaadan u samaynayna waxay tahay macquul marna ma ahan diinta inay riyo wax ka beddesho sidaa darteed riyada wanaagsan waxay tahay waa bishaaro wanaag رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوليه الرؤيا الصالحة من الله رياضة وناكسن إلهي تبارك وتعالى إن عيسى كأهاتي والحلم مد حنا محي كأهاتي من الشيطان شيطان عيسى فإذا رأى أحدكم هدو متكينا أركو ما يكره وح أو لبسدو أو مركا حن أو لباتا مركو أركو محو سمينا يا وحوليه إن عيسى معناها بديح ذنا يعني هأطفو سد حمر حنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدا سوق سد حمر حديث كما روايدي محنكو راهي صحيح مسلم وحي لهدهي waxa iskana wareejiyo dhinacii oo u jiifamaan dhinac kale u wareegsado مثلا waxaad u jiiftay dhinacan macnaha bidixda u jiiftay ama midigtaad u jiiftay kadib riyada aad aragtay midiga u jiiftay ka soo qaad riyada aad aragtay waxaad iska xawilaysaa inta a'uudu billahi min shaytaan rajim aad dhahdo oo aad yaani maxaan ku dhahay dhinacaasi aad u tufto saddex mar waad iswareejinaysaa dhinac kale oo bidixa مثلا isoo wareejinaysaa
ama dhinacaanaad u jiiftay ama sidaanaad ahayd hadba sidaad marka xaaladda aad ku sugnayd ayaad iska wareejinaysaa dhinac kalead u jeesanaysaa macnaha waa intaa rasuulkuna wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam innahaa min ashayطaan falaa tadurruh riyadaasi kuma dhibayso maxaa yeelay shaydaan dhinaciisay ka ahaatay ogow marka riya noloshaada waxba yani yayna ka beddelin riyan wax wanaagsan aad samayn jirtay yayna wax kugu soo kordhin hadday wanaagsaneed bishaarayso khayr ilaahay ka rajay haddii hadda laguu fasiro dad wanaagsan oo kuu fasiro aad heshidna alxamdu lilaah laakiin hool aad ku jirtay ama manhaj kuu socday ama diintaada riyadii yayna noqon mar walbaba wax markaasi yani saameeya noloshaada diineed dhaqankaadi wanaagsan marka arrintani waxaan u leeyahay waxay tahay in badanaa macnaha qoraala noo yimaada waana na soo wacaa dad ayaa noo yimaada riyadii waxay leeyihiin saa ayaan arkay imaamaan macnaha anoo kacbada ka ah waxaan arkay yacnihii oo dad tujinaya ummaddo dhan ay isku soo macnaha waxaa la igu fasir inaan madaxweyne noqon doono marka wuxuu raadinayaa uu rabaa noloshiisoo dhanba inuu ku dhiso waxyaalahaasi haye waxaan arkay anoo meel joogo oo marka yani jaamacad macnaha yani ka jeedinaayo khudbad ka jeedinayo lecture ka jeedinaayo oo intaasoo ummad caddaan iyo kada isku jiraan oo luuqad walbana aan ku hadlaayo yani u fiirso xaaladda noocaasoo kale ah wax walbo wanaagsan khayr ku bishaarayso laakiin noloshaada waxba yayna ka beddelin wixii kuu yimaado qadartii kuu qaro way kugu dhacaysaa marka qadartii kuu qaran way kugu dhacaysaa shaki kuma jiro adigu un waxaa lagaa doonaya inaad iska ilaalisid waa maxay inaad iska ilaalisid in wixii aad ka dhigato wixii wanaagsanaad qabanaysa aad laga tagto tusaale ahaan maalan yacnihii waad shaqaynaysay shaqaad ku jirtay waa riyootay waxaad ku riyootay macnaha shaqada haddaad ka tegtid arsaaqdaa ilaahay kuu furaaya wayna dhacda hadda ogow rag arrintaa ay ku dhacdaa macnaha noo sheegay haddaad shaqadaa ka tegtid ilahay arsaaqda kuu furaaya waa waasici kuu noqonaysaa kadibna maxaan ku dhaha waxaasaa helaysaa intaasoo macnaha shay oo mala abaal ah qofkii shaqadii uu ka tagay riyo darteeda hadda u fiirso shaqadii waad ka tagtay marka maxaa kugu soo kordhi doona weeyaan wuu sugay isbuuc 2 isbuuc bil 2 bil 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil famil uu dul saaran yahay macnaha shaqadii uu ka tagay wuxuu arkay noloshiisoo dhan inay hoos u dhacday oo baaba'ayso intaasoo deen lagu lahaaday intaasoo dhib oo la soo kulmay macnaha oo ku soo darsay oo noloshiisa macnaha yimid macnaha marka u fiirso noloshaada haba yaraatay ha u beddelin adigoo khayr iyo wanaag ku jira yacnihii inaad riyooto maxaan ku dhahay kadibna riyadii aad ku dhaqanto haye xaaskayga waxaan ku riyooda anoo macnaha riyoonaya ayaa waxaan arkay xaaskayga oo aan furay kadibna markaan u imid waxaan ku yidhi riyadaasaan arkay sida shar inaad ii tahaanad macnaha yani ii caddaatay maadaama aan riyadaa aan arkay oo xumaan iyo waxaasaana dhex martay kadibna waan ku furay ogow sidaasaad igaga furan tahay way dhacday غريب ما أهان وحيالها قاركيسة مركز مخش أضاه يابايا ورنولش هذا ريا وح كما بدليسو نولش هذا خير كي وناق قد كجرتيد ريا وحنا كومسو كورينيسو وحنا كما بدليسو سيدا درت هذا بشاريسو رياضة وناقصن إلى حقيسي كأهاتي لكن غير بربوري شغاكتك إسدل ماشا إسكتور قفكا وحيال قفكا حمو قفكا معنا وحكشك قفكا وحكو سمي قفكا خيان قفكا بين وشك هبيراتي وحاسو دنوا من الشيطان شيطان عيسي كأهادين hana yacnihi maxaan ku dhahay samayn maxaa yeelay kuma dhibi doonto waxa kugu dhacaad ku riyootay maalan adoo meel ka soo dhacay ama adoo lagu dilaa ku riyootay shaydaan dhinaciisay ka ahaatay wuu kugu ciyaarayaa asaa kugu ciyaaraya intuu kuu yimaado wuxuu doono kugu samaynayaa marka ma ahan adigii marka inaad yacni wixii aad macnaha aad oofiso samaysa ma aha ilaahay tabaaraka wa tacaala marka yacnihi hana waafajiya khayrka nagana dhiga kuwa markaas yacnihi hadalka wanaagiisa qaata xumaantiisana ka taga وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.